dadka oo dhan wax ma akhriyaan sidaynu ognahay. haddaba sidee la yeelaa marka warqadi kaaga timaado qofkaaga oo waayuhu idinkala kaxeeyeen balse aanad akhriyi karin? sheekadan waxaa la idhaahdaa dhal wadaad. xusuusta oohintii qiirada lahayd waa qiso dhab ah. waxaa qoray saaxiibkay abwaan maxamed haykal. sidan ayay ku bilaabmaysaa. bishii 6 ee sanadkii 1995 xilli abbaaro 8 fiidnimo ah ayaan baabuur safar dheer soo galay kaga degay magaalada Laanqeyrta oo degmo ahaan Xarshin ka tirsan. waxaan ka imid Hargeysa oo aan joogay 10 bilood wax ka yar. safarka waxay igu wehelinayay Allah u naxariistay abtigay. habeenka waxaanu ka cashaynay makhaayad u lahaa nin Cabdi Qorane la odhan jiray, kana mid ah qoyska iyo reer abtiga ah. wax yar kolkii aanu joognay ayuu abtigay geeyay xaafad isla qaraabada ah si aan ula seexdo. dhowr dumar ah oo guriga ku caweynayay ina wada garanayay ayaa si weyn ii soo dhaweeyey. waxaa la ii goglay qol jiingad ah, waxaana la ii dhigay faynuus. agabkii aan sitay kolkii aan dhigtay isuna diyaarinayo inaan seexdo ayaa gabadha habaryar iigu aadanay i weydiisay, habaryar, far Soomaaliga ma akhridaa? si degan ayaan haa ula soo booday. akhrin keliya ma aha ee berigaa xiise waalan ayaan qorista iyo akhriska farta Soomaalida u hayay. qolkii inta aan ka soo baxay ayaan soo dhex fadhiistay 3 dumar ah. midkood ayaa sanduuq yar oo agteeda yaalay warqad ka soo saartay. waa xaashi cad oo dheer, labada dhinacba qoraal dhammaystiran kaga yaallo. ma hubo in warqadda qof safarkayga ka mid ahaa siday iyo inay hore guriga u sii taallay. intii aanan akhrinta warqadda bilaabin ayay 3 dumar ahaa hoos u wada hadleen. midkood ayaana dibadda u baxday. akhrinta warqaddii ayaan bilaabay. sadarka u horeeya warqadda waxa ku qoran cidda ay ka timi iyo cidda ay ku socoto. waxay ku socotaa 2 dumar ah ee la fadhiya. waxaanay ka timi maxbuus dagaal. salaan miisaan leh oo si hilow iyo kalgacal leh u soo qoray waxa ku xigay beydadkan. dhal wadaad la moodiyey, dhawaaqan jeclaystaan dhaqso kaaga filayaa. waa eriyo ku jiray heestii Dool ee Maxamed Saleebaan Tubeec qaadi jiray oo isdaba mariyey. intaa kadib qoraalka waxa uu kaga warramay xaaladiisa, isagoo ammaan badan u jeediyey cidda maxbuus ahaan u haysata oo reer abtigii ah. hooyo waxaad u sheegtaa in reer abtigay sidii lagu yaqaanay si gobonimo leh ay ila dhaqmeen. aniga oo dhaawac ah ayay xanaaneeyeen. way i baanteen oo i baxnaaniyeen. way i sharfeen oo i ilaaliyeen. agtooda waan ku nabad qabaa. xaaladuna inay nabad ku dhammaan doonto ayaan rajaynayaa, ayuu qoray. intaa dabadeed waxa uu ku dheeraaday sida uu ugu xiisay aragtida xaaskiisa iyo hooyadii. inuu muuqaalkooda maskaxda ka daalacdo oo aanay marna ka bixin ayuu ku celceliyey. si gaar ah ciiddii u dambeysay inaanu goob la joogin iyo inuu aad u tabay cuntadii marwadiisu karin jirtay ayuu xusay. dhowr tuduc oo isku xiga kolka uu qoraalka sidaa u wadaba beydad heestii hore ah ayuu soo dhexgeliyaa. mar kasta oo uu beydka heestaa qoro waxa uu ku bilaabaa dhal wadaad la moodiyey. waa arrin fiiro gaara leh. sidii aan akhrinta warqadda u duduminayay ayuunbaan hal mar kor u daymooday 2 dumar ahaa. midkood oo ah xaaskii maxbuuska ayay indhaheeda ilmo ka hibitiqaysaa. waxay dhabankeeda ku masaxaysaa shalmad ay hagoognayd. hooyada maxbuuska oo da ahaan 70 ila dhoweyd murugo ayaa ka muuqatay, laakiin indhaheeda ilin kuma arkin. malaha ilmadu hore ayay uga idlaatay. maxbuuskii warqadda soo qoray waxa uu si dareen leh mar kale qalinka ugu adkeeyey dardaaran uu marwadiisa u jeedinayo. tii aan jeclaayay, haddii is araggeenu xagga alle ka qoran yahay wayna kulmi doonaa. haddii ay dhici weydana 3 ilaali. daryeelka ubadkeenna, u dabicsanaanta hooyo, iyo inaad mar kasta ii soo ducayso. mar kale ayuu sadarradii heesta sii waday, isagii oo sidan qoray. dhal wadaad la moodiyey, waan kugu dhadhabayaa. dharaartaynu kulannaa dhulku ila wareegay. dhimasho iyo nolol baan weli kala dhex joogaa. haddana mar kale ayuu weedhayadii diilo leh iyo erayo kaftana ku xigsiiyey. xoogaa kolkii uu waday ayuu haddana ereygii adeegsaday, dhal wadaad la moodiyey. warqaddii ayaa dhammaatay. intaan isku laabay ayaan gacanta uga dhiibay marwadii kolka hore ii dhiibtay. way kala furtay, sidii qof qoraalka akhriyi kartana u kala bixisay. waxaan hoos isu weydiiyey, haddiiba ay warqaddan akhrisan karto maxay kugu dhiibtay? laakiin sidaa may ahayn. niyadda inay ka akhriday mooyee in aanay weligeed waxna qorin waxna akhriyin ayay ii sheegtay. talow mayndhahayga ayay ka dareentay. waxaan hoos weydiiyey,
warqaddii ayay isku laabtay, waxaanay ku riday sanduuqii ay ka soo saartay. dabadeed aad ayay iigu mahadnoqday, iiguna ducaysay. waa berigii xigay kolkii aan soo kaxay ayaanu abtiga iyo isla maqaaxidii cabdi qorane ku kulannay. dhacdadii aan warkeeda akhriyey ayaan wax ka weydiiyey, isaguna xogtii uu ka hayay ayuu ii sheegay. maxbuuska warqadda soo qoray waxaa lagu hayay deegaanka Lebi Sagaalo, waxaana isaga oo dhaawaca lagu qabtay mid ka mid a dagaaladii sokeeye ee Hargeysa ka bilaabmay dabayaaqadii 1994. qodobka labaad ee xiisaha leh ee abtiga igu kordhiyey ayaa ahaa in gabadha uu dhalay sheekh deegaanka caanka ahaa. sida malahaygu yahay, waa sababta uu maxbuuska warqadda soo qoray ugu celcelinayay dhal wadaad la moodiyey. ugu dambayn, maxbuuskii aan warkiisa akhriyey waxa uu si nabad ah isaga oo dhaawacii ka bogsaday reerkiisa ugu soo laabtay sanadkii 1997. dalwadaad la moodiyey indhaha ku dhaygagay dalwadaad la moodiyey indhaha ku dhaygagay dabanada hilaaciyo dholaka qosolkaage dabanada hilaaciyo dholaka qosolkaage dhaqaq joog dhigayga dhalanku ilayaaba dhaqaq joog dhigayga dhalanku ilayaaba yukudhaafin hadalkuy idaga nuglo hadalkuy idaga nuglo